رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن علي غيره ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Wariyahayaga Bashiir Jidaal Barrow ayaa inoo soo diray. qodobkeena warka caalamka ugu doorka roona nadiinahayna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka jeeday golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaana sheegay in xukuumaddiisa ay guulo muhiim ah ka gaartay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab cunaqabateynta hubka saaran dalkiisa iyo oo xadidayo in guulo laga gaaro ujeedadaasi waxaana uu sheegay in argagixisada ay weli tahay mid ka mid ah caqabadaha cakiran haystana dalkiisa iyadoona cawaaqibka ka dhashayna laga dareemay buu yiri caalamka oo dhan waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la mideeyo dadaalada ku aadan sidii looga hortagi lahaa aanfadaasi waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la sameeyo dadaal kasta oo aan ku dhimayno euro kobacayo galaangalka ururka argagixisada caalamiga ahi sida IS iyo al-Qaacida kuwaas oo aan ognahay inay saameyn ku leeyihiin argagixisada gudaha ayuu yiri ra'iisul wasaare Kheyre kordhiya ayuu yiri dadaalada lagu sameynayo faragelinta ka dhanka kooxahaasi oo kale ayuu ku sii daray khudbadiisa Soomaaliya ayuu sheegay in ay gaartay guulo wax ku oolahi ayna ku yarta ayuu yiri awoodda al-shabaab hase yeeshee waxa uu sheegay in cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya ay si weyn u xadidayso in guulo laga gaaro ujeedadaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay sii wadi doonto sidii ay guulo ula shaqeyn lahayd ayuu yiri golaha ammaanka iyo dhinacyada kale ee sidii cunaqabateynta hubka dalka looga qaadi lahaa Soomaaliya. Bashiir Jidaal Barrow, wararka caalamka, Royal TV.